Assalaamu calaykum kusoo dhawaada kanaalka Nafaqa Channel. Intaa kadibna maanta waxaan u bushaaraynaynaa dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed ee ka cabanaya xanuunada kala duwan sida cayilka ama buurnida saayidka, murqa xanuunka, haaraha wajiga, calool istaagga, jinka, sixirka iyo isha. Haddaba dukaanka daawo dhaqameedka ee loo yaqaan Geedsame waxa uu kuu keenay oo aad ka helaysa waxyaabihii aad kaga bogsan lahayd idanka Ilaahay xanuunada aynu soo sheegnay. ugu horeyn waxaynu soo qaadanaynaa daawada loo yaqaan wasfatu ruumi. waxa ay ka kooban tahay daawadani caleenta gobka, milix iyo weliba shabbi. waxaana lagu daaweeyaa jinka, sixirka iyo isha idanka Ilaahay. waxaana ku jirta 7 kiish oo yaryar. sidaa daraaddeed waxaa lagu darsadaa 5 litir oo biyo ah, kadibna waa lagu maydhaa. Geedsame waxaa kaloo uu ku keenay saytul maqri. waa saliid saafi oo quraan lagu akhriyay, isla markaana jidhka ayaa la marinayaa ugu yaraan 3 jeer maalinkii. furkeeda barkiisna subaxdii ayaa la cabayaa. waxaana saytul maqri lagu daaweeyaa jinka, sixirka iyo isha. Geedsame waxaa kaloo uu kuu keenay oo aad ka helaysaa saytul acsaab. waa saliid ka kooban 6 saliidood sida xabaasuud iyo sisin iyo weliba kuwoo kale. sidaa awgeedna waxaa la marinayaa muruqyada, isla markaana waa buufimo oo sida cadarka oo kale ayaa la isku buufinayaa. dhinaca kalena dukaanka daawo dhaqameedka ee Geedsame waxaad ka helaysaa oo kuu keenay almur walkarkam oo ah huruud iyo malmo la isku ridqay. waxaana la marinayaa wejiga iyo haaraha. sidoo kalena Geedsame awraaqul casiima ayuu idii keenay oo aad ka helaysaa. awraaqul casiima waa quraan lagu qoray sacarfaraan orgaaniga ama dabiiciya. 5 xaba ayaa ku jira oo quraan ayaa ku qoran, isla markaana waa laga maydhaya, kadibna waa 10 oo waa la cabayaa. waxaana loogu talagalay oo lagu daaweeyaa durrada, jinka, isha iyo sixirka. Geedsame waxaa kaloo uu ku keenay timirta loo yaqaan cajwa. timirtani waxay ka baxdaa kaliya magaalada barakaysan ee Madiina, waxayna leedahay faa'iidooyin fara badan iyadoo dadka ka ilaalisa sunta iyo sixirkaba. wuxuuna rasuulkeenu sallallahu calayhi wasallam yidhi, ciddii ku waabariysata ama ku quraacata 7 timirood oo cajwo ah ma dhibo maalintaas sun iyo sixir toona. Geedsame waxaa kaloo inoo keenay shaaha magaciisa la yidhaahdo Royal oo loogu talagalay inuu miisaanka dhimo, calooshana waa uu jilciyaa. waxaana la cabayaa subaxdii quraacda kadib iyo habeenkii cashada kadib. waxtarkiisana tijaabada ugu horeysa ayaad arki doontaa insha Allah. geesta kalena dukaanka daawo dhaqameedka ee Geedsame waxa uu ku keenay saliid saytuun dabiiciya. saliidan waxaa laga soo saaraa midhaha geedka saytuunka. haddaba saliid saytuunka waa mid nafaqo iyo caafimaad kulansatay, waxayna jidhka u tartaa waxyaabo badan. saliid saytuunka waxaa ka buuxda maaddo jidhka sunta ka saarta oo loo yaqaan antioxidants. waxayna la dagaalantaa maadadana caabuqa jidhka, waxayna hoos u dhigtaa kolestaroolka, taasoo ka hortag u ah xanuunada wadnaha. sidaa daraaddeedna saliid saytuunka xanuunada ay ka hortagto idanka Ilaahay waxaa ka mid ah kansarka, wadna xanuunka, macaanka, xasuus la'aanta iyo cayilka ama buurnida. haddaba aan kuu tilmaamay dukaanka daawo dhaqameedka ee Geedsame waxa uu ku yaalaa magaalada Hargeysa, gaar ahaan siijeedka dabaqa dheer ee shirkadda Telesom ee ku yaala biriijka Hargeysa agtiisa. markaad taagan tahay masaajidka loo yaqaan Nakhiil ayuu dhanka bari ka xiga. waxaanaad kala xidhiidhi kartaa ciwaanada shaashada kaaga muuqda.